Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaanu ka hadlaynaa maxaa keena khasaaraha ganacsiga. Weli ma isweydiisay waxa keena khasaaraha ganacsiga? Marar badan ayaad la kulmaysaa khasaare aad u fara badan, laakiin waxaa jira waxyaabo keena khasaaraha ganacsiga oo caan ah oo la wada garan karo. Lambarka koowaad, saadaalinta khaldan ee suuqa. Waxaan ka wadaa saadaalinta khaldan ee suuqa inaad saadaalinta suuqa aad khalato ama aad ka hesho xog aan run ahayn. Run ahaantii marar badan ee ganacsatada waxay la kulmaan inay suuqa intay saadaaliyaan ay yiraahdaan suuqa waxaas ayaa looga baahan yahay, waxaan ayuuna ku socon karaa, ama iyagoo isle waxaad ka faa'iidaysaan dhaqaale aad u fara badan, kadibna waxay keenaan alaabooyin aad u tiro badan. Marka saadaalinta suuqa oo kaa khaldanta waxay kuu keeni kartaa khasaare aad iyo aad u weyn. Lambarka labaad, qorsheyn la'aanta alaabta. Haddii aad alaabta aad qorsheynin inta kaa baxaysa iyo inta ku soo galaysa intaba, ama aad keento talabaad aad u fara badan, kadibna suuqana uusan ka jirin dhaqdhaqaaq fiican, run ahaantii waxay kuu keeni kartaa khasaare aad iyo aad u weyn. Lambarka saddexaad, xayeysiinta xun. Xayeysiinta xun waxay kuu keeni kartaa khasaare aad iyo aad u weyn. Kaba soo qaad waxa aad samaysay xayeysiintaasoo aan waafaqsanayn ganacsigaaga ama waxa saxda ah oo aad iibinayso. Marka xayeysiinta khaldan waxay kuu keeni kartaa khasaare aad iyo aad u badan. Lambarka afraad, xiriirka shaqada oo xumaada. Haddii xiriirka shaqadaada uu xumaado ama xiriirka shaqaalahaas uu wanaagsanaan waayo, run ahaantii waxaad la kulmi kartaa khasaare aad u badan, taasoo aysan ku xirnayn suuqa ama alaabtaada, laakiin ay ku xiran tahay dadka ku iibgeynaya ama kuu sameynaya marketinga. Mar walba waxaa muhiim ah inaad xiriirka shaqaalahaaga ama dadka wakiilka kaaga ah ganacsigaaga inaad la leedahay xiriir aad iyo aad u wanaagsan oo aan marnaba idinka dhexaynin wax taag ah. Sidaasoo kale waxay muhiim ugu tahay ganacsigaaga inuu kor u qaadmo oo ganacsigaaga uusan marnaba khasaare la kulmin. Mar walba waa inaad dadka shaqaalahaaga ah ama wakiilka ganacsigaaga kaaga ah waa inaad u samaysaa abaalmarino markay sameeyaan shaqooyin aad u waaweyn, markii ay shirkadda soo geliyaan dakhli aad u fara badan, markii ay sameeyaan wax cajiiba oo ay shirkadaha kale kaga duwan yihiin. Haddii aad intaasoo dhan aadan samayn, aad shaqaalahaaga aadan dhiirigelin, run ahaantii ma wanaagsana. Adduunka shirkadaha caalamka ugu waaweyn shaqaalahooda markii ay sameeyaan faa'iido aad u badan, run ahaantii waxaa loo sameeyaa abaalmarino kala duwan. Marka adigana waxaad isticmaalaysaa xeelada noocaas oo kale ah. Lambarka shanaad waa mushaharka xun. Haddii aad mushaharkaaga shirkadaada ama shaqaalaha kaga shaqeynaya aad ku yarayso mushaharka ama dhaqaalaha ay qaadanayaan, run ahaantii ma wanaagsana. Mar walba mushaharka waxaa rabaa inuu ku xirnaado hawsha la qabanayo. Haddii aad shaqaalahaagii aad u dirto hawl aad u fara badan, kadibna aad mushaharka aad ku yarayso, run ahaantii ma wanaagsana. Khasaare ayaanad kala kulmi kartaa. Khasaaruhuna ma aha shaqaalaha inay ku xasdayaan ama ay ku hagardaameynayaan, laakiin waxaa laga rabaa shaqadaada inaad u qabato si wacan oo wanaagsan. Waa inaad keentaa shaqaalo badan, waa inaad keentaa shaqaale aad u badan, ama waa inaad mushaharka u kordhisaa shaqaalihii horey kuugu shaqeynaya. Laakiin haddii aad tiraahdo hawl badan ayaa la qabanayaa oo shirkadda laga qabanayaa, mushaharkana waan yaraynayaa, shaqaalahana waan yaraynayaa, run ahaantii ganacsigaaga wuxuu la kulmayaa khasaare aad u weyn. Khasaarahaasoo aysan cidna kuu keenin ee adigu aad isku keentay. Marka mar walba mushaharka iyo shaqaalaha iyo shaqada la qabanayo way isku xiran yihiin. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe noo saar. Mahadsanid.